السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقة سودو هذا ميلو البقى جوكتين أصحابي جنالكو وقورح دمر أوفيشيال تو كسودو هذا تقو عصب تهي وأي تايمركي كوغو هوريسي فضلهم حكا عصنايا أتسواي جنالكينا سبسكرايب نو سارتو لايك سيدو كاليتو نو سار نونا سي شير كاري أصحاب تقاليقة لو ذاك أصحاب هذا كله أصحاب تقاليقة أيانتهم وحلاقة إذن كما هايو مركا آدي وما سنتين وحيد الله يسود وهذا هسمرتيننا منك نوايا أصحاب تقاليقة أنشع لهاي هذا وما سنتين كما الدالي دون إنا إذن له وما سنتين مركا كوات إله أيام هادي إسكاله ومهد علينا مركا لباتنا إذن كأيام هادي إسكاله aad iyo mahadsantihiin insha Allah asxaabtayda qaaliga ah maanta halkan waxaan karsaneynaa qada yar insha Allah soo dhawaada saliid dab ku soo digsiga ku soo shubtay way kulaaday kadib basashii ayaan ku soo daray sida aragtaanbo insha Allah qada yar waa iska easy ah nin walbana qada wuu karsadaa marka aad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad حالا بلو إلى إدمات دعوته إن شاء الله نونا سي شارك ريسو الله يكتن آذنك إلوبين أسحبتي إذا قاليقة بس الشيوات تساوي محالا هاي سو قدودة تسفي يعني قدودة يوم ربا ويسريد النوع عرفته كدبني جيكين أيام كسو درسانايا وعن سواجة جرتي أو فيديو بلو جيسا عاد كسو أركتين مركا chicken keeni markaan ku soo darsada kadibna wixii aan ku soo darsado kale waa isla arki doonaa insha Allah asxaabta qaaliga ah qaybta soo dhaweynta idin fadhiya soo dhawaada asmartiyeenina minankiina waay kadib waxaan soo qaadanayaa yaanyada ma soo shiidin yaanyo waaweyn waaye marka waxaan ka soo bixiyay miraha dhaxda ah ayaan ka soo bixiyay kadibna oo ujeedeen oo saas u yaala mirihii dhexda dhanaan kasoo bixiyay miya Soomaali marba nooc waay marba si ayaa u hadlay kasoo bixiyay okay kadib waxaan soo qaatay yaan shiishid 2 xabo ayaan ku soo darsanayaa marka yaanyada aan maxaa la dhahay aan oo dhexda aan kasoo bixiyay miraha maxaa la dhahay ku soo miiri doonaa ayre ama miire ama aana miiran soo qaada doona kadib cadde ayaan ku soo darsaday kadibna hal xabo baradho weyn ayaan ku soo darsan doonaa kadib waxaan rabaa inay isku huurto oo si fiican u bislaato iyada iskeedan ku dhahay inay isku bislaato ayaa u baahanahay insha Allah asxaabtayda qaaliga ah aan jeclahay halkan ku jiro karootadeena ayaan soo qaatay waan jajaranayaa dabadar kariyo ma la isku tilmaamay asxaabay nin walba badar uu kariyaa ama cunto uu karin karaa ya dadka qaar waxay dhahaan badar iyo cunto laba nooc ayuu kala yahay badar waa badar cuntona waa cunto marka maksay ani badar iyo cunto isku kaymid waaye laakiin dada badarka nooc kale u yaqaaneen sida galeyda shiidan oo kaleeto maxaa la diirto oo kaleeto waxyaalahaas ay badar dhahaan marka badar le waa karootadeeni waa taasaa halkaasaan ku fiiqanaynaa 2 xabo waan soo jarjarayaa kadibna waan fiiqaa markaan fiiqo kadibna waan soo jarjaranayaa insha Allah isla socod doona hadii Ilaahay idmo asxaabtayda qaaliga ah waxaan rabaa wacdi yar inaan maxaa la dhahay idin la wadaago oo ka sheekeynaya xasidnimada ee dhibaatada ay leedahay iyo qofka xasidka asaga naftiisa inuu xasid ku yahay insha Allah soo dhawaada qofkii la xasdaayay intaysan wax u dhiminaysan dhaawicin kii uu xasdaayay bay dhaawacaysaaba maanta dhan murugu ku jira qofka waxa uu helay uu ka murugaysan yahay cad ilaahay wa subhanahu wa ta'ala ku dhacaysa tawfiiqdii la waafajin maaya asagana albaabadii khayrka oo dhan baa ka xidhmaaya musiibu ku jira ashar uu san ka helayno murugo iyo dhibaato haysata qofka muuminka dhibaato haday ku dhacdo murugooda haduu sabra ashir buu leeyahay kan laakiin musiibada uu ku jiro iyo murugadaan uu ku jiro iyo cidhiidhigan laabtiisa uu ka dareemayo wax ashar laga siinayo ma aha dhibaato ku habsatay marka xasnimadu marka intay qofka kaleba u gudbeen kii la xasdaayay kii uu xasdaayay marka horeba dhibaataynaysa wax wanaagsan ma aha laabtaadu qaboobaan mayso
qalbigaagu degi maayo maanta dhan waxaad ku maqan tahay heble iyo hebel waxa ay haystaan alla yaa dhaafiya taasaa kugu weyn adigii marka dhibaato kugu haysa adigaa laabtii culays kaa saaran yahay adigaa madna ciriiri ku jira adaa isla diriirsan maanta dhan isu naqsanaya wax wanaagsan marka ma aha xaasidnimada tilmaam suuban oo mu'min uu leeyahayna ma aha mu'minku salaamatu sadri baa tusaale tilmaamu ah ahlu jannada markay janno galaan wanasacna maa fii suduurihim min ghillin wax xumaan oo qalbigooda ku jira male cuqdad kuma jirto xiqdi kuma jiro xasad kuma jiro waa qalbi nadiifa weeye qalbigaagu markuu saa inuu noqdaa loo baahan yahayo xaasidnimada uu nadiif ka yahay inta aad xaasidka tahay adigana dembi baa kugu socdo kuu socda ogow ajarkaaguna waa sii yaraanaya ogow dunuub kale tiro badanna waad xambaarsanaysaa ee la soco wax wanaagsan marka iyo tilmaam wanaagsan xaasidnimadu ma aha dhibaatooyin fara badan baan sheegnay inay leedahay mujtamacana laga yaabo inay ka muuqdaan maxaa marka looga daawo u ah waxaa daawo u ah saan sheegnay in aad ilaahay u shukrido nicmooyinka uu ku siiyey aad ka shukrido wixii lagu siiyeyna aad ku qanacdo oo dad kale waxay haystaan aadan u hanqal taagin kan la xasdayna ama qof walboo xasad ka baqaayana waxaa asagana u daawo ah ومن شر حاسد إذا حسد إنه يلاده إلهي مغان قالوا قف والبو حسدا يا حسد كيسا إنه إلهي كمغان قالوا داود مرك وام محي وام مغان قال إلهي لما مغان قالوا هي الشكر إلهي لو شكر يوحو إلهي قروا قرشيدا لو قنعوا دباتوين كأي حاسد ما دولا هذا هنا مجتمع أنها تمانت ولا قاري كرا ريرا كدمه ويل كان يجود عن سعال مدام يسعال فضيبة اللي سلربين أيجي بالله قد حشقينايا oo maxay war loo kala geeyaya ilaa reerka uu dumo labada qof oo saaxiibada baan saaxiibtinimada iyo xiriirka wanaagsan loo quurin markaas war loo kala qaadaya oo la isku diraya maanta oo dhan dariska wanaagsan baan la isu quurin markaas maanta oo dhan la isku diraya soo ma garanaysid way ka muuqataa marka guriga dumay iyo dad la kala geeyay iyo daris isku duulay iyo dhibaatooyin aad u tira badan xaasidnimada keenta وحساسه كلمانته أي كم وقتها مرة قار سخلنا ولا معاملة قف إنه أساق إسكت عدعية إلا حسدا سوقهم بلا حسدين بقى إنه أساق إسكت عدعية دباتوين بيكن تلفت كذا قف وحلقية أبا مثلا مرة قاربة وحلقينا واحدة مع ضام وعطستول وما يكدى ملوود ديدو مركبة يسكوسو دقدقين ولا يحسدايا ليلة مرة ومايا وحلقية بعلاد دون هذه قتها وحلقود ديدي وحلقية أبا وحلقود ديدي وحي لو قبها هنا هذه قد ما يسترين وحلقية أبا وحنا بكاسر ريال ودن قادي كرين qofkii u qalmay inaadan ahayn wax cilada ma leh marka inaad iska dhaadhiciso sujuubto dagaalanto dirirto carooto tirada wali xasdaya sax ma aha inaad iska dhaadhiciso ama horumarkii aad sameyn lahaydba war maxaa u dhaqaaqi laadahay war maxaa wax u qabsan laadahay war maxaad wax u baran laadahay war gabadhay maxaad u guursan laadahay waa la xasday oo yaa ku sheegay taa lafteedu wax wanaagsan ma aha inaad iska dhaadhiciso adiga wax badan bay ka hor istaagaysaa marka saas in la macaamilo oo wahmi meeshu yimaado takhayul ayadu xasad bajirin in adiga isku barogaraamiso shay laga fiican yahay weey waxyaalaha maanta xasadnimada ay keentay ee muuqda waxa kamida in xasadnimadii iyo waxaan xasadnimada in la isku qaldo munaafasa in la tartamo oo khayrka lagu tartamo oo dadku khayrka ay ku tartamaan wax dhibaato ah ma leh wax mushkila ana ma leh haddii khayrka lagu la tartamayna macnaheedu maaha in lagu xasdaayo wax dhibaato ah ma leh wax dhibaato ah male in munaafasa wanaagsan la sameeyo saxaabadu ku tartami jiray khayrka Abu Bakar iyo Umar baa ku tartamay Soomaaliya sadaqadii markuu nabigu yahay sallallahu alayhi wasallam ama i'laamiyay marka insaas macnaha salaamatu sadri haduu jiro khayaalkaas xul meesha iimaan maayo qanaacada marka in lagu dadaalo way warka murtidiis qof walba waxa Ilaahay ku siiyay ku qanaac Soomaalidu waxay oran jireen saddex baa lagu kabaa aqal kooyar ardaa baa lagu kabaa aqoontoo yarna aamus baa lagu kabaa adduunyadaadoo yarna iimaan baa lagu kabaa wax yare Ilaahay ku siiyay inaad iimaansato inta yare Ilaahay ku siiyay inaad ku qanacsanaato waxa laga yaabaa inay jiraan kuwa badan oo aan haysanin waxa maanta adiga aad haysato si aad uga badbaado marka qanaacadaha laga helo nabiguna kaleey salaatu wasalaam wuxuu ina yiri qofka ka hooseeya eeg Soomaa xaaladda aad ku jirto xaaladda ka sii liidata qofka ku jira eeg caafimaad kaaga hadii wax si ka yihiin kuwa ka daran oo sariir saaran baa jira xoolaha xoolo la'aan haday ku hayso kuwa darbiyada jiifo meel ay ku hooydaan aan haysanin baa jira wax allaalo ku haysta kuwa ka liitaa jira kuwa eege kuwan ka sarreey mar walba hadaad eegto oo adduunyada aad kula tartanto tartankan ka sheekeynaya waa aakhirada iyo khayrka hadii adduunyada lagu tartamo la yiraahdo mar walba inay xaasidnimadu dhacdo waa laga yaabaa
marka salaamatu sadri ha lagu dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo shukriyo waxa uu ilaahay ku siiyey ku qanac ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadnaq inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa badbaadiyana ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiso ducada albaabo fara badan bay furtaaye ilaahay bari inuu kaa badbaadiyo akhlaaqda xun nabiguna ducadiisa way ahayd sallallahu alayhi wasallam sooma ilaahay waxaad igu hanuunisaa akhlaaqda wanaagsan laa yahdi li ahsaniha illa ant adiga un dadka akhlaaqda wanaagsan ku hanuunin kara ilaahay oo akhlaaqda xun iga badbaadi adiga qofka doonto akhlaaqda xun ka badbaadin kara wakiilha nabiga alayhi salatu wasalam akhlaaqda xun buu kamid yahay xasadka dhaqanka xun buu kamid yahay dhaqanka aan muslimka u soo barin buu kamid yahay in laga badbaadaa loo baahan yahay marka qaar marka takhayulka iyo wahmigaana la iska ilaaliyo walaalaha maxay ahayday qaybtood oo khayr ay ka tahay iyo wanaag ay ka tahay oo maxay ahayday baashiraya dadka muslimiinta ee dhibaataysan inay daweeyaan oo ama quraan saaraan oo cilaajiyaan ila aakhirihi ayaga laftigooda mararka waxa laga yaabaa inuu khalad ka dhaco oo shaydaankan qofkan ka dhaxadlaya inta la waraysto inuu yiraahdo hebla ay xasadii hebel baa ay xasdayo inta la rumaysto warkiisa la qaado reer la isugu diro taa laftigeeda ayaga maadaama ay hawsha gacanta ku hayaan inay kontaroolkeeda hayaan oo arrintaas sida wanaagsan ee shariicadu ay qabto oo dhibaato ayaan ka dhalanaynin inay ula dhaqmaan baa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda hana waafajiyo waxaan gafi waa nafya shaydaan rabbi rasuulna alayhi salatu wasalam bari bay ka yihiin ilaahay baan cafis weydiisanaya